السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي أدونك ميل كستا كجوجتان بسو دواada channelka naga fiirsanaysaan waa channelka Kaltuun Kaafiya. Maalmahan waa ka yara maqnaa YouTube-ka, waa ka yara caajisay, laakiin sadartan waa idin soo noqday sheeko yar oo aad iyo aad aan la yaabano waa idin keenay. marka hadii aad wali subscribe isaan oo igu cusubtaa markii ugu horeysa arkaysa ee tahay walaal qaali subscribe ka dhac ku sii like tana dhac ku sii. maanta waxaan rabaa sheeko inaad la wadaago. sheekadan oo ka dhacday Uganda, gabar Ugandese ayaa ku dhacday, gabar Ugandese oo shaqo raadsatay oo masaakiina. waa aragteen Afrikaan hadii aan nahay Soomaalida, Ugandeska, Kenyaanka dhamaanteen waxaa shaqo u raadsanaa Saudi Arabia. waxaana fududeeyaan kambaniyaal yaryar in la shaqada qof gabadha markay raadsanayso iska tagto shaqada iska ma helayso moogtahay. marka shaqada waxaa fududeeyay kambaniyaal. marka company la dhahayo Nile Treasure Gate la dhahayo ayaa u fududeeyay gabadhan inay shaqada hesho. Nile Treasure Gate wabiga Nile ay ku magac darsadeen miya. gabadha shaqo u soo heleen 2019 December way baxday shaqo ay aaday 2019 heshay. 2019 markay heshay December 12 waxay aaday Saudi Arabia Jeddah. housemaid ka noqotay halkaasito guriga shaqaalaha guriga ay ka noqotay muddo 2 bilood ah. gabadha walaalkeed oo lagu magacaabo Robert Kadiji walaalkeed ka yar wuxuu dhahay weyna la hadli jirtay markasta walaasheena maana weyni jirin. 2 bilood gabadhi markay sii maqan tahay waa la waayay. hadalkeeda lama haayo. booska hadii la waco taleefanka wuu ku dhageysanaa ama taleefanka wuu ku jaraabo dadka markuu ka qabtana. markii ugu dambeysana wuu baloogareeyay. muddo sanad ah ay gabadhooda la ahaayeen. kambaniga markasta loo tago la xiriiro la dhaho war sheega gabadhi ma sheegi karaan meel ay ku maqan tahay iyo meel ay jirto iyo inay dhimatay inay nooshahay. qofkaada hadduu dhinto waa ka samri kartaa, laakiin qof dhawaay kama samri kartid soo maahan. si walba way u raadiyeen gabadhooda way ka qoosteen ilaa markii dambe 2021kii 30 October ee soo wacaan kambanigii gabadha markii hore shaqada siiyay ayaa soo wacay reerka waxayna ku dhaheen gabadhiin waxay ka soo degaysaa Entebbe International Airport soo degaysaa. yaa ma ara qof oo sanad dhan ka maqnaa hadii lagu dhaho hal mar la elboorku ka soo degayay ee u imaada. markay elboorki imaadeenna waxay arkeen gabadhoodii oo paralyzed ah dhinac dhan qalalan yahay si kaleeta. markii hore ay ka tagay sidaan ay ahayd, markii ay soo noqotana sidaan ay ahayd. yaab iyo fajac iyo makaak, laakiin way nooshahay. kadib lama siinin gabadh reerkooda, laakiinse waxaa loo kaxeeyay isbitaal si loo soo baaro maadaama ay paralyzed tahay wixii ku dhacay iyo waxa sababta loo soo ogaado iyo uur ku jirteeda dhammaan inay qabto maadaama ay tahay qof wheelchair ku fadhiyo. waxaa la soo ogaaday marka baaritaan lagu suubiyay ka bacdi kilideeda midigta inay maqan tahayba. meeshaas markaasito waxaa soo galay booliska Soomaaliya sababta kilida u maqan tahay ayaa la weydiinaya nimankaanito. kuwii kambaniga 4 qof oo kamid ah ayaa la soo qabtay waana la xiray. waxaa la dhahay maxaa been u sheegteen maadaama report ay wadatay markii koowel boorkii ka soo degaysa Saudi Arabia ka soo qaatay isbitaalka weyn ee ka soo qaatay ee Sacuudiga dawladda iska leedahay waliba King waxaas la dhahaa. فاهمين هكذا يدرسوا ترى وسبيتال آد وين أو عانه واي. هذا ولا حراي أيجي أفرتوده بين أي شيكتان هذا هاي وحنا هذين حبنا هذا وركجرت هذا دمان وقبتها وحكم خنا ملهن. سداس أيانا اللي قلت على أيجي وحتاجين أنا كمان خانو إسبيتال كأي وراء وسوسيي أنا كان ورك ما هنا مركب بوليس كوحوق الشكيي أو محكمة لقصة صارة أيجا إنه gacan weyn ay ka qaateen gabadhan kilideeda in la baxsado. gabadha markii maxaa paralyze ka dhigay gabadha waxa paralyze ka dhigay March 2020 xilliga reerkooda weynayaan ay weyn doonaan muddo 4 bilood ka yar ay reerkooda ku waayeen. ay waxay galeen accident ayada iyo booskeeda iyo 2 cunug u dhalay iyo xaaskiisa. meesha hata waxa ku geeriyooday la sheegay 2 cunug oo asaga dhalay booskaas oo asaga u dhalay naagta u shaqeynaysay. gabadhan waxay gashay koomo ay gashay paralyzed ay noqotay 1 sano ay isbitaal ku jirtay reerkoodana uu soo sheegin. dacwadu waa sii weynaatay waxay gaartay 2 dawladood Uganda iyo Sacuudi. safaaradda Uganda joogtay Sacuudiga ayaa waxay la hadashay Sacuudiga waraaqo ay u qortay waxaana dhahday gabadhooda inay dhiban tahay ay u sheegeen oo shil ay ku gashay baabuur. qofka shil baabuur markuu galana dee waxa la siiyaa lacag Soomaaliya abaal marin ayaa la siiyaa.
ninkii oo u shaqeyn jirtay ayaa maxkamad la soo istaajiyay waxaana lagu xukumay 271,450 maxaa la dhahaa lacagta oo Sacuudiyaanka ah riyaad lacag Sacuudiyaanka ayaa lagu xukumay inuu siiyo gabadhaaseeto waa lacag u dhiganta 165 milyan oo shilin adiga ugu yaraan 76,000 dollar meelahaas waa u maleynayaa ayaa looga qaaday haba looga qaado maxamed gabadhaan ayadu waxay ku faraxsan tahay inay maadaama ay nooshahay nafteeda ay haysato reerkooda u soo noqotay baralaas baa iska ahaato iyadoo sidaan u qurux badan ee ka tagtay iyadoo sidaan u soo noqotay ayada ma xanaaqsano dhibaatana ma haysato laakiinse waxay dadkeeda iyo rabaan xaqeeda in la ogaado kilideeda meesha ku maqan tahay ninka maxkamadda markii la soo istaajiyay lama weydiinin kilida gabadha ma kala baxday ma kala bixin waxaas dhan baartaan laguma sii suubinin kaliya xaq waxaa looga qaaday inuu shil asaga uu geliyay oo nolosheedana curyaan uu ka dhigay kaliya looga qaaday lacagta wax kaleeto loogama qaadin maalin kasta ay dhacdaa arrintan oo kaleeto waxay ku dhacdaa boqolaal gabdhood waxay ku dhacdaa Soomaaliya ku dhacdaa Soomaaliya jaani cirbi meel dhigan la ka seenin oo la yahay ilaa hajartaanito gabdho badan Kenya ku dhacdaa Soomaaliya ku dhacdaa Uganda ku dhacdaa cid kasta ay ku dhacdaa qof kasta ay ku dhacdaa qofkii hadduu nool yahay ba ureerkooda soo noqdo lacagna la siiyo alxamdulillah waayo marka ilaa hadartaan dadku waxay isweydiinayaan gabadhan kalideeda xagee jirtaa keeskaas ilaa hadartaan wuu socdaa kuwii kambanigii Nile Treasure Gate la dhahayna ilaa hadartaanayto waxay ku jiraan dacwo ay u socota xabsi kuma jiraan laakiinse markasta maxkamadda ay la soo istaajiyaa waana la ugu daba jiraa la weydiiyaa markasta maxay kula tahay sheekadaanayta adiga aniga sheekadeeda halahaas ay kusoo gabagabooday sheeko yar oo aad u yar ayay ahayd misana xambaarsan maxay xambaarsan tahay macna aad u weyn ayay xambaarsan tahay soo maahan waxay u baahan tahay in laga digtoonaado meesha aad shaqo ka raadsanayso waa inaad ka fiirsataa in company la intuu ku dhaho shaqo ku siinayaa kaale aad war America aad hadii la dhaha xataa aniga company uu ikixeenayo I can't ilaa iyo dadkayga meeshaas ay joogaan aan dadkayga u tagaayo hadii la ikixeenayo waa saas soo maahan laakiin hadii lagu dhaho ka waran company hebel iska register garee dhac waa lagu qaaday kaliyahay wax kasta laga baxaa hadiiba hal kali loogu ekeey nasiib leedahay soo maahan walaalayaal sheekada halkaas ay ku soo gabagabeenayaa sheekadan aniga mucjiso ay la noqotay qof kalidiisii la qaatay oo meel uu isku sheegay la garanaynin laakiin sadeeb ay soo noqotay khayr waaye sheekada halkaan ay ku soo gabagabeenayaa fadlan haddii aad ka hesho sheekooyinka waa idoo soo badini doonaa waxaa ii soo qortaan noo soo badi sheekooyinka dee hala support gareeyo channelka hala support gareeyo like iyo share iyo comment dhamkiina waaye asxaabta qaaliga fadlan haddii aad ugu cusub tahay weli subscribe noo saar comment iyo share iyo wax kasta wax gaada waaye channel kaleeto ayaa leeyahay baaq iyo masbel caruurta iyo waxaas iska soo gelgeliyaa halkan ay soo saaraya waa kaasa mujeedido waa kaas fadlan subscribe saar intaas ayaa kusoo gabagabeenaya sheekadeeda intaas ayaa idinla wadaagaya intaas ayaa jeclaystay inaa idinka sheekeeyo في أمان الله انت فيديو كان فيديو لمدة أخو كل مدة أنا حايدين كتجاه سيدها سيو مع السلامة باي باي.